fartuun cali mar cali oo loo yaqaano fartuun balbalaarka ayaa baraankii ku samaysay baabujay taasi oo jacayl wali u sheegtay maxay yahay jacayl ka dhaxeeya fartuun balbalaarka iyo baabujay jacayl wali ayaa ka dhex bilowday waa saaid isku inoo sheegayaan saaxiibayaal marka waxaan ku faalin doonaa barnaamijkeena maanta haddaba fartuun ma waxay rabtaa inay baabujay ay ku dul qarba sida handana laba san markii la joogtana hay tiraahdo warya waxba mataraysiisa banaanka u kac ayay arrintan ayaan maanta barnaamijkeena ku faalin doonaa laakiin saaxiib marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka guda gelin inaad barnaamijka la garayso ma doonaysa inaad barnaamij qala qurux badan soo gelino bartina saaxiib barnaamijka kale soo kala subscribe si kamaralkana furo youtube-keena Cabdalla Deqsi saaxiib soo kala xogtaan media waa page-keena Facebook asagana buuqo follow dheh asxaabtadan u share gareysay iyaguna follow dhahaan kuna casuuna asxaabtada aad baad ugu maasantahay saaxiib soo qurux badan ee knowledge qaadan haddaba waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena fartuun Umar Cali oo loo yaqaan fartuun balbalaarka gabadha Ismaan Deeman ka carartay isoo kale wiil hore ka soo carartay ayaa hadeerna jacayl wali oo sheegatay baabujay waa wiilka baabujay ee sidoo kale nimka filmaanta jira codkooda leh ama codkooda filmaanta jira ee sidoo kale youtuberka caanka ah baabujay waa garan kartaa inta badan waa wiil sidoo kale youtuber ah in waxa ay u sheegatay jacayl waliya taasi oo markii dambana ay u badashay markii ay hurdigeli waayeen ay u badashay baraanki jacaylka baabujay iyo fartuun waqti badan ayaa la soo xamaanay ilaa markii uu Nairobi tagay waxaa la sheegay inay jacaylka dhaxay oo soo kala Ismaan Deeman waxyaalo ka naasi oo soo ku jiro imkan markay guriga ku wacatay dad badan ayaa u fiirsatay amba baraha bulshada si wali u falaqaysan ogeyn ama ku arkaynay baraha TikTok YouTube ku falaqaynay oo sheegay in fartuun iyo soo kale oo jacaylka dhaxay jacaylka sanaa baabujay inuu isugu dareensanaa inay prank tahay markan ay macnaha kamarada ka duubayso oo filcintiisa dadka tusto sahay jacaylkeeda inuu jiro ay u muujiso laakiin aw isaguna arinta si fahansanayo diisa darteedna u sheegay inuusan jacaylin uu lahaa farhaygada ay eriyo istaafin ah taasi oo dadku sida dhabta ay u fahmeen runtii aniga laftarkayga ahaan sidoo waa arrin jirta oo aad loo maartay macquul ah aqli gal ah runtii waa noocaas waa aqli gal waayo in badan ayaa la isku xamaanay dad badanna waxay lahaayeen fartuun iyo baab maxay yihiin jacaylkoodan waalid ah ee ay barkastaba ku wada jiraan leefka iyagoo kooda sheekaysanaya arrimaha xasaasi ah oo xataa aan halan ku soo qoob karin dhamaatid marka aad aragto laba lamaana oo barta TikTok iyo baraha bulshada kale ku wada jira xasaasi oo ama dadkuna ay sidin aan ognahay dadkuna wasadaaliyaal waxay ka soo sadaaliyaan waa yimaadaan inta badan markaas waxaa la saadaaliyay inay sartuun iyo baabujay yahay jacaylkooda noqon doona mid baradhada aakhirka Ismaan Deeman ay isaga ku bedelayso amba hay say u turtayba Ismaan Deeman inay tahay inay baabujay boos ku soo geliso laakiin baabujay waa jileeciyadna waa jireer in kasta oo la ogeyn inuu baabujay horintaas si au sideed u dhameyn doono u noqon doono siiga fartuun ee Deeman in fartuun ma Ismaan Deeman taas inagu ma ogon laakiin waa sida barnaamijka lagu faliyay saaxiib intan ayaan dal wadaagaynay laakiin waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like saarto una share garayso saaxiibadana kale Facebook ku jira isoo kale YouTube-keena Cabdalla Deqsi subscribe saar in komboleerkana aad baad ugu maasantahay laakiin qaadkaaga